wararka aynu ka helino magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland ayaa waxa ay ku waramayaan in magaaladaasi goordhow lagu dilay wiil dhalinyaro ah oo ka soo jeeda deegaan ahaan maamulka Koonfur Galbeed. Dhacdadan ayaa ka dhacday Hotel Taleex ee magaalada Garowe, waxayna loo xaqiijiyay in askari ka tirsan ilaalada Hotel Taleex uu dilay wiilkan yari. dilkan ayaa yimid kadib markii wiilka yari iyo askariga uu soo kala dhaxgalay muran ka dhashay gaari leel calaawi ah oo wiilkan yari uu ku dhaqayay iridda hore ee hotelka. marxuumka ayaana ahaa marxuumalaata ka shaqaysan jiray dhaqida gawaarida kala duwan ee magaalada Garowe. lamaha ammaanka Garowe wali wax faahfaahin kama aysan bixin dhacdadaani ku aadan dilka wiilkan dhalinyarada ah. maalmo ka hor ayay ahayd markii sidaan oo kale Cabdimaalik Xuseen oo ahaa timajare ay gacan ka caqdaran ku dishay goobtiisa ganacsiga, iyadoo lamaha amniga magaalada Garowe ilaa haatan aysan soo qaban gacan ku dhigli ka dambeeyay dilka Allah naxariistay Cabdimaalik Xuseen. ehelada marxuumka la dilay ayaa markaas ka dalmanaya lamaha amniga magaalada Garowe in ay cadaalad marsiyaan askariga dilka u geystay wiilkooda. magaalada Garowe caasimadda maamulka Puntland ayaa maalmihii dambe waxa ku soo badanayay dilalka noocan oo kale ah oo askarta ka tirsan maamulka Puntland ay u geysanayaan dadka marxuumalatada ee ku sugan gudaha magaalada Garowe. dadka ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed ee ku dhaqan gudaha magaalada Garowe ayaa marar farbadan ciidamada amniga ku eedeeyay in ay si gooni u bartilmaameedsanayaan dadkooda marxuumalatada ah ee ka xamaasha gudaha magaalada Garowe. hase yeeshee maamulka Puntland ilaa haatan kama uusan jawaabin aad ay u soo jeediyaan dadka ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed ee ku dhaqan gudaha magaalada Garowe.